السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسر دعوة ورك ما أنت عتكم مغلي دونتان وحاكمة. رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد وبوقنا يا خرطوم سيو دح هذه دنيا السودان. دولة فدرال كصوماليا أو يارت أيضاياش دقن كبيلها دق جبلان. يوسف دبجيد أو شيء إنه جواب دق كسوجي أميسوم. رئيس الوزراء كحجين كدولة فدرال كصوماليا أو صار أمر كأدن قران كأدن عدة. سوماليلان أو مالنتي شناد حبسي كوهايسا قبر تاغرت الدولة إيران. iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ahmed Karash oo sheegay hadii Muuse Biixi uu cunaqabatayn saaray gobolka Sanaag in ay taasi been tahay ay iyagana ka howlgali doonaan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeena maanta. Haatan u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inuu Jimcaha maanta booqasho hal maalin ah ku tago dalka Suudaan iyadoo ujeedada booqashadan halka maalin ah lagu sheegay inay la xiriirto sidii uu u dhexdhexaadin lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan waxaana sidaasi laga soo xigtay safaaradda Ethiopia ee Khartoum. ila wareedyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Abiy Ahmed uu la kulmi doono golaha militariga Suudaan iyo isbahaysiga xoogagga xorriyadda iyo isbeddelka inta lagu guda jiro booqashadan halka maalin ah. Booqashadan Abiy ee dalka Suudaan ayaa ku soo aadaysa xilli ay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ay Suudaan ka hakiyeen xubinnimada dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ururka inta ay dawlad rayid ah ka dhisanaysa dalkaasi. golaha ayaa go'aankan ku dhawaaqay kadib kulan ay xubnaha goluhu ku yeesheen Khamiistii magaalada Addis Ababa. go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay dhawaan sare u kacday rabshadaha ka socda dalka Suudaan iyada oo ciidamada ammaanka ay toddobaadkan dileen dad kor u dhaafaya 100 qof. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed ayaa sheegay inay ka sugayaan jawaab degdeg ah in ay ka helaan taliska ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay saldhigyada ay horay beledweyne uga hirgeliyeen booliska AMISOM uu ugu mahad celinayo hase yeeshee uu ka hadlay in ay 4 xaafadood ee magaalada beledweyne ay saldhigyo kale uga dhisaan. wuxuu sheegay inay sugayaan jawaab degdeg ah dhismaha saldhigyadaasi maadaama uu sida uu sheegay ay horay uga dalbadeen saldhigyadaasi inay kaga furtaan 4 xaafadood ee kala duwan ee magaalada beledweyne. saldhigyadaasi ayuu sheegay inay qayb ka noqon doonaan adkeynta ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana uu sheegay inaysan weli helin jawaabtii maamulkoodu ay ka doonayeen ciidamada AMISOM. jawaabtan degdeg ah ee ay ka sugayaan ayuu sheegay inay tahay in laga aqbalo codsigaasi ama lagu wargeliyo inaan la aqbalin codsigooda. taliska ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM ayaa mashaariic kala duwan ka sameeyay Hiiraan waxa uu tababar siiyay ciidamada booliska ee maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Hiiraan. xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne waxaa ka dhaca dilal qorshaysan oo mararka qaar ay geystaan Al-Shabaab waxaana uu gudoomiye Dabageed uu sheegay in ay saldhigyadaasi wax badan ka qaban lahaayeen ammaanka magaalada guud ahaan. wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga dhigeen Isniintii la soo dhaafay gabar taageertay dawladda Iiraan. gabadhan oo muujisay sida ay u taageersan tahay dawladda Iiraan iyadoo dhaleecaysay dawladda Mareykanka iyo maamulka Yuhuudda oo xiriir aan wanaagsanayn uu kala dhaxeeyo dawladda Iiraan. toddobaadkii hore waxaa taagnaa xiisad u dhaxaysa dawladda Mareykanka iyo Iiraan waxaana gabadhan ciidamada Soomaaliland ay xireen xilligaasi iyada oo ka hadashay aragtideeda iyo taageerada ay la garab istaagtay dawladda Iiraan. baraha bulshadu ay adeegsadaan dadka ku sugan Soomaaliland ayaa waxaa qabsaday dooda ka dhalatay xariga haweeneydan waxaana la ogeyn sababta qof aragtidiisa cabiray xabsiga loo dhigay. Axmed Aadan Rooble oo ay walaalayihiin Safiye Aadan oo xabsiga la dhigay ayaa sheegay in ay la yaab ku noqotay markii ay maqleen walaashood oo ka hadashay arrimo ka duwan kuwa gudaha Soomaaliland in xabsiga la dhigay. wuxuu sidoo kale sheegay in walaashood Safiye mar ay ka xanuunsatay maskaxda balse markii la xirayay ay ahayd hooyo caruurteeda la joogta. Safiye Aadan Rooble ayaa axadii ka soo muuqatay warbaahinta Soomaaliland iyadoo shir jaraa'id ku qabatay Hargeysa waxayna xilligaasi ahayd qof xiran niqaab.
dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ugu yeertay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan hoggaanada dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland. xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa casuumadan rasmi ah u fidisay odayaasha dhaqanka iyada oo u martay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo la dhacsan xukuumadda ama ka soo horjeeda maamulka hadda talada haya ee Axmed Maxamed Islaam. xog ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in inta badan odayaasha dhaqanka ay diideen casuumadii uga timid dowladda federaalka Soomaaliya ayna dalbadeen in iyaga loogu yimaado magaalada Kismaayo si looga wada hadlo tabashooyinka ay dhinacyada Jubbaland iyo dowladdu kala qabaan. wararka kale ayaa sheegaya in qaar ka mid ah odayaasha ay ogolaadeen balse ay ka fikirayaan sidii ay Muqdisho u aadi lahaayeen iyo sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen haddii ay la kulmaan xukuumadda Soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba maamulka talada haya. beelaha diiday ee warbaahinta la hadlay waxaa ka mid ah beesha Cawrmala oo ka mid ah beelaha dega Kismaayo waxaana senator u ah mudane Iftiin Xasan Baasto oo mucaarad weyn ku ah dowladda Soomaaliya sida uu meelo badan ka sheegay. xubno ka tirsan beeshaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ay u soo dirtay mas-uuliyiin ka tirsan beeshooda oo aysan magacyadooda sheegin. kaliya ma ahan beeshan waxa martiqaadka diiday waxaase jira beelo kale oo naga dalbaday inaan la adeegsanin magacyadooda nabadoonadooda ama beelaha ay matalaan. xukuumadda Soomaaliya ayaa ka fikiraysa qorshe kale oo ay ku meel mariso go'aanadeeda ku aadan xaaladda Jubbaland iyo doorashada sanadkan dabayaaqadiisa ka dhici doonta. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Khadar Guleed ayaa sheegay in ay dowladda mamnuucday qashin la sheegay in lagu shubi jiray garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. warqadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa loo diray wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, xafiisyada AMISOM iyo kuwa qaramada midoobay. waxaa kaloo lagu cadeeyay qoraalkan in uu kordhay qashinka dhex yaala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isla markaana aan la aqbalaynin laga bilaabo 1 bisha soo socota ee July in qashin dambe lagu shubo garoonka dhexdiisa. waxyaabaha laga mamnuucay in la galo madaarka caalamiga ah ee aadan cadde waxaa ka mid ah haraadiga dawooyinka, agabyada gubtay iyo qashinka burka ah. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ka hadlay arrinta ku aadan madaxweynaha Somaliland inuu cunaqabatayn saaray gobolka Sanaag taasi oo muddooyinkii dambe ay aad u hadlaysay warbaahinta. Axmed Karaash ayaa ugu baaqay hay-adaha inay hay-adaha caalamiga ah ka howlgalaan si la mid ah hay-adaha Puntland ayuu sheegay in ay laabaan howlihii ay ka hayeen gobolkaasi. muuse waxaa la yidhi cunaqabatayn ayuu saaray Sanaag ma uu saari karo, haddii uu saarayna annaga ayaa ka howlgelayna ayuu yidhi isaga oo ku daray Sanaag ma joogaan al-shabaab, Puntlandna al-shabaab waa iyaga intaa garaacaysa, dhankooda ayaa laga soo abaabulaa oo ay joogaan ayuu yidhi. Puntland iyo Somaliland waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo muddo dheer soo jiitamayay.